madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo ku sugan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa ka hadlay khilaafka cusub ee dalku hadda galay xilli doorashada golaha shacabka ee mareyso heer gabagaba ah. Maxamed Cabdi Waare ayaa madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay inuusan xilligan wax doorashaha dalka ka dhacdo u socon, taas beddelkeedana uu doonayo inuu xukunka iska sii dheereysto, wuxuuna ka digay dhibaatada ka dhalan karta xukun jaceylka. Maxamed Cabdi Waare ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada dalka Eritrea loo qaaday iyo dalka Itoobiya in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu u gol leeyahay sidii awoodda xafiiska ugu sii dheereysan lahaa, wuxuuna bannaanka keenay qorshaha madaxweynaha uu saacad kasta ula shiro taliyayaasha ciidamada qalabka sida. Maxamed Cabdi Waare ayaa sidoo kale waxa uu carabka ku dhuftay in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha muddaxileedkiisu u dhammaaday uu hadda doonayo in awood ciidan uu u adeegsado xukunkana sii dheereysto. Si kastaba, khilaaf aad u sareeya ayaa hareeyay doorashada, iyadoona maamulka Koonfur Galbeed ee ku dhawaaqday inay wada shaqayntii dhanka doorashada ah ay u jartay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble, walow aanay jirin wax doorasho ah oo ku harsan maamulka Koonfur Galbeed maadaama uu dhameystiray doorashada 77 xildhibaan ee aqalka sare iyo golaha shacabka ku matalaysa baarlamaanka 11aad ee dalka.